kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Romal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwoodii ugu waaweyn intaad muuqaalkan daawanayso waxaan kuu soo gudbin doonaa xaaladda guud ee bariga dhexe iyo sidoo kale Iran oo weerar gantaalo ah la bartilmaameysatay magaalada Tel Aviv iyadoo xilligan jab culus uu soo gaaray Netanyahu xilli Mareykanka uu dalbanayo in la siiyo muddo 5 maalin ah si loo soo afjaro dagaalka xilligan ka soconaya qaybo kamid ah bariga dhexe sidoo kale wadamada qaliijka Carabta xogii u dambeeyay ayaa halkan kugu la wadaagi doona waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinac ayaa soo saaray shuruudo kuwaas oo la hordhigay Iran si loo joojiyo dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe Iran dhankeeda waxay soo saartay shuruudo kala adag oo ay hordhigtay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil hadaba shuruudahaasi ma yihiin kuwo ay Iran aqbalayso Iran kuwa ay soo saartayna ma noqon doonaan kuwo Trump iyo sidoo kale Netanyahu ay ku qanci doonaan qodobadaas ayaa halkan kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkan furostay ku soo gaaray muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay muuqaalka inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo khudbad jeediya ayaa waxa uu ka dalbaday Iran in ay joojiso dagaalka tooska iyo sidoo kale duqeymaha ay la bartilmaameysanayso goobaha muhiim ku ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil waxa uu sidoo kale Mareykanka uu soo jeediyay in la siiyo fursad 5 maalin ah si loo soo afjaro dagaalka ka soconaya bariga dhexe sidoo kale qaybo kamid ah wadamada qaliijka Carabta xilli uu soo jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadalkaasi ayaa durba Iran waxa ay duqeymo culus ay la bartilmaameysatay magaalada Tel Aviv iyadoo halkaasi ay ku garaacday gantaalo dhowr ah oo ka samaysan balaastikada waxaana duqeymahaasi fuliyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hawada sare dul heehawaya waxaa la soo warinayaa in halkaasi uu ka dhashay qasaaro baaxad leh inkastoo Israa'iil ay si fiican aysan u shaacinin qasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay balse muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa waxa uu muujinayay in qasaaraha uu yahay mid baaxad leh waxaana la arkayay ololka iyo qiica oo cirka isku sii shareerayo Iran markaan waxa ay sheegtay inay la soo baxday hubkeedii culus inkastoo Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay hawada ay u marinayaan Iran in markaan uu dagaalka xageeda uu gabaabsi uu ka yahay isla markaana ay ka dhamaadeen hubkii ay adeegsanaysay waxayna sheegeen in dagaalka uu markaan uu soo afjarmi doono inkastoo Iran markaan ay u muuqato in wali ay haysato keedka hubka nooca balaastikada iyo sidoo kale midka nuclear-ka iyadoo horeyba ugu dhawaaqday in hub badan uu keed uu ku jiro isla markaana kuwii ay isticmaashay ay ahaayeen kuwo iska dhaxaleystay oo markii horeba u baahnaa meel lagu daadiyo balse ay sheegtay Iran in hub ku filan ay haysato hadii uu dagaalka uu sii socdo muddo sanado ah xitaa ay haysato hubkii ay kula dagaalami lahayd Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka dhinaca kale Iran waxay duqeymo culus ay ka fulisay qaybo kamid ah wadamada qaliijka Carabta kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay duqeymaha ay ka weecisay balse markaan dib ay ugu soo laba kacleysay Iran ayaa dhowr gantaal waxay ku dhufatay wadamo kamid ah qaliijka Carabta kuwaas oo saldhigyo waaweyn ugu yaala Mareykanka iyadoona Iran ay sheegtay in laba jibaarayso duqeymaheeda iyo dagaalka tooska ah ay la bartilmaameysanayso Israa'iil iyo sidoo kale wadamo ku yaala qaliijka Carabta dhinaca kalena Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka waxa ay doonayaan in la soo afjaro dagaalka ka socda bariga dhexe iyo sidoo kale wadamo kamid ah qaliijka Carabta iyadoona ay soo saareen shuruudo ay Iran ay kaga dalbanayaan in dagaalkaasi lagu joojiyo inkastoo shuruudaha ay soo saareen Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca aysan u cuntameenin Iran waxaana shuruudahaasi kamid ah in Iran ay joojiso sameynta hubka nuclear-ka
Iiraan arintaasi waxa ay tahay mid ay ka dhimanayso joojinta hubkaasi maadaama haddii ay hubkaasi ay joojiso ay awood ay u yeelanayaan Mareykanka iyo Israa'iil in ay xakameeyaan Iiraan ama sidii ay doonaan ay ka sameystaan waxa kaliya ee Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay xilligan Iiraan kaga baqayaan waxa uu yahay sameynta hubka nuclear-ka iyo sidoo kale uranium-ka iyadoona shuruudaha ay ka mid ahaayeen in qodobadaasi hal mar waxaan dulmari doonaa qodobadii ay soo saareen Israa'iil iyo Mareykanka telefishinka Israa'iil ka soo baxa ee channelka 12 ayaa baahiyay ilaa 15 qodob oo ku jira heshiiska oo Mareykanka u gudbiyay Iiraan si loo joojiyo dagaalka xilligan ka sii xoogeysanaya ee ka socda bariga dhexe qodobada Mareykanka uu diyaariyay ee la baahiyay ayaa waxa kamid ah in la burburiyo awoodaha nuclear-ka oo ay Iiraan hadda leedahay in laga mamnuuco Iiraan inay horumariso amaba hodmiso wax nuclear ah ee gudaha dalkeeda laga mamnuuco in uranium-ka la hodmiyay lagu wareejiyay hay'adda tamarta ee nuclear-ka qodobadaas markii Iiraan la hordhigay waxa ay noqdeen qodobo si aad ah ugu adag inay qaadato si loo joojiyo ee dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe maadaama ay Iiraan ay leedahay awoodda nuclear-ka iyo sidoo kale awoodo badan oo ay kaga hortagi karto Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka qodobada kale ee 15 qodob kamid ah ayaa waxa ku jira in Iiraan ay joojiso taageerada ay siinayso kooxaha ku sugan bariga dhexe waxa sidoo kale kamid ah in la joojiyo maalgelinta iyo sidoo kale huweynta kooxaha ay taageerto Iiraan ee gobolka in marinbiyoodka Hormuz uu ahaado mid furan oo aan la xirin waa halka kaliya ay Iiraan sidoo kale ay ka dhimato marinbiyoodka Hormuz intii uu dagaalkan uu socdana Iiraan waxay awood ay u lahayd in ay xirto marinbiyoodka Hormuz taasi oo caqabad ku noqotay Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka maadaama halkaasi ay si maalinle iskaga kala gooshaan maraakiib badan oo sida shidaalka waxayna midaasi ay u doorbidayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka in haddii dagaal noocan oo kala u dhaco ay awood u yeelan karaan marinbiyoodkaasi Hormuz sida ay doonaan inay u isticmaalaan iyadoo xilligan ay awoodda marinbiyoodka Hormuz ay gacanta ay ku hayso Iiraan waxa sidoo kale qodobada kamid ah in dib loo dhigo go'aanka ku saabsan gantaalada balastikada tan oo la macno ah wada hadalada lagu soo darayo qodobka la xiriira awoodda gantaalada ee Iiraan in gantaaladaasi loo isticmaalo oo kaliya difaaca in la qaado dhammaan cunaqabateynta hore loo saaray Iiraan in la joojiyo hanjabaadaha tooska ee marka ay cunaqabateen lagu soo rogiyo Iiraan dhankeeda waxa ay soo saartay qodobo aad xasaasi u ah kuwaas oo marnaba aanan ku socon doonin Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil si loo qaboojiyo ee dagaalka ka socda ee bariga dhexe qodobadii ay soo saareen 15 qodob ee Israa'iil iyo Mareykanka Iiraan kaliya waxay ka soo dhax saartay 5 qodob ay u aragto in ay muhiim ay u yihiin shantaasi qodob waa 5 qodob oo u dhigma in aysan Israa'iil sidoo kale Mareykanka aysan aqbali doonin maadaama shantaasi qodob ay Iiraan ay muhiim u yihiin waana qodobo horey heshiis loogu damacsanaa ee wada hadalka intii uu socday Mareykanka Israa'iil sidoo kale Iiraan qodobadii lagu soo kala tagay markale Iiraan waxay miiska ay soo saartay 5 qodob oo xasaasi ah warbixin uu daawacay wargeyska The Wall Street Journal ayaa shaaciyay qodobada shuruudaha culus oo Iiraan miiska soo saartay kuwaas oo si cad ah u muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay isjiidka istaraatiijiyadda ee dagaalka ka socda bariga dhexe 5 qodob ee shuruudaha ay Iiraan ay soo saartay waxa kamid ah in si degdeg ah loo xiro dhammaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe iyo sidoo kale wadamo kamid ah Khaliijka Carabta iyadoo la ogaa in Mareykanka duulaankii uu ku qaaday Iiraan uu ka soo abaabulay wadamo ku yaala Khaliijka Carabta oo saldhigyo waaweyn ugu yaala qodobkan Mareykanka si aad ah ayuu u saameynaya iyadoona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump u muuqda inuusan aqbali doonin in uu qodobkaasi si aad ah
u qaato oo ay ka mid yihiin shuruudaha ee Iiraan ay soo bandhigtay maadaama ay saldhigyo waaweyn oo muhiim u ah Mareykanku ugu yaala bariga dhexe sidoo kale wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta. qodobada kale Iiraan ay miiska soo saartay ayaa waxa ka mid ah in la bixiyo damaanad amni oo rasmi ah oo taas oo sharci ah isla markaana ka hortagaysa weerar dambe inaan lagu qaadi karin Iiraan, in la joojiyo weerarada Israa'iil ee ka dhanka ah xisbiyada gudaha ee Lubnaan, in gabi ahaanba la qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan iyo mas'uuliyiinteeda, in Mareykanka uu bixiyo magdhow dagaal, in wax shuruud ah lagu xiri karin barnaamijka gantaalada ee nuclear-ka ee Iiraan. qodobkaasi waxa uu ka mid ahaa qodobadii ay soo saareen Israa'iil iyo Mareykanka oo Iiraan ay kaga dalbanayeen inay joojiso sameynta hubka nuclear-ka. Iiraan waxay soo saartay qodob kale oo ku aadan in aan wax gorgortan ah lagala gali karin sameynta hubka nuclear-ka oo marnaba la soo hadal qaadi karin maadaama ay awoodeedu ugu weyn Iiraan ay tahay sameynta hubka nuclear-ka. qodobkaasina waxa uu noqonayaa mid keeni kara is-afaham lahaan oo lagu heshiin doonin shuruudaha labada dhinac ay soo kala saareen. waxay sidoo kale Iiraan qodobada ay soo saartay ka mid ah amaba ugu weyn marinbiyoodka Hormuz. Iiraan waxay sidoo kale soo jeedisay in la abuuro nidaam cusub oo u ogolaanaya in lacag laga qaado maraakiibta mara marinbiyoodka Hormuz. qodobadaasi waxay ka mid ahaayeen kuwii ay Iiraan ay soo saartay. 15 qodob ay soo saartay in Israa'iil iyo Mareykanka waxa ka dambeeyay qodobadii ay Iiraan ay soo saartay oo ka koobnaa 5 qodob. ilaa hadda wax jawaab ah laguma helin Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil. waxayna u muuqataa tani inay ku adag tahay inay si dhaqso ah ku aqbalaan Netanyahu iyo sidoo kale Trump. wixii xoogay ku soo kordhay la xiriira dhacdooyinkan iyo wixii ka soo baxa muuqaaladeena xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigam baleelkana fursay ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkeena share garay laakiin oo saar soo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada.